wuxuu marayaa walaale markii guriceel anagu aan deganayn oo dagaalku nagu qabsaday dagaalkii anagoo magaaladanadii iyo meeshii iyo dhufayskii iyo magaaladii ku dhex jira waxaa noo yimid rag dawladda iyo maaragtay galmudug iyo isugu jira waxayna sheegeen in maaragtay wadahadal la galahayo aana ka baxno maaragtay dhufayska iyo magaalada bahol aan tagno intaas wada hadalkii noocaas ahaa ayaan ku soo baxnay ma garata waa garta waxaan ku degnay bahol welina baaqi baan ku nahay waa garta intaas aan ognahay waxa weeye wada hadalkii baan anagu weli ku joognaa kulliyadaasaan ku joognay cid maaragtay wada hadalkaasna waxaan sugaynaa kulley in wanaagiisii iyo wada hadalkii la aado intaas baan ku joognaa hadaba yaa idinkugu yimid guriceel oo dhinaca dawladda ka socda waxaan ogaanay nin ganacsada ah iyo dad kaloo la socday inay idin yimaadeen wax dawladda Soomaaliya ka tirsan ama galmudug oo guriceel wada hadal idinkula galay ee ka baxa idin yariyaa kamid walaal waxa weeye barnaamijka anagu waxa weeye rag baa mas'uul ka ahaa sida maaragtay Sheekh Maxamed Shaakir raggii go'aamada qaatay laba nin oo kale culimo ah oo ka timid xagga Muqdisho sanatarada galmudug nin ganacsada oo anaga naloo soo diray la yiraahdo Xaashi intaas waa ka warqabnay inay maaragtay wada hadalada ay ku wada jireen ma garatay ma telefoon bay qayb uga ahaayeen mise waa idinkugu yimaadeen jaamacadda markaad ku jirteen sida Xaashi Carabi oo maya waxa weeye shirku qayb telefoon ku dhacay laakiin Xaashi waxaana loo soo diray iyada oo la isku ogyahay barnaamijka in maaragtay Xaashi daadiyo way deegaankan hadda aad joogtaan maalmahan waxa ka socday kulamo xubno saraakiil ah oo militariga Soomaaliya ka tirsan oo la ii sheegay inay wakiil ka yihiin dawladda Soomaaliya inay idin yimaadeen haddana ay dib u laabteen xagee ayuu ku dambeeyay wada hadalkaas iyo natiijooyinka ka soo baxay walaal hadalkaas iyo natiijadiisu waxay ku dambeysay in aanan maaragtay dacwo kale masuuba aanan dul saari karin macnaha dacwad rasmiya oo ah wada hadal ayaan ku nimid mid kale tii oo aan jahayeelana mid kale hadda la dul saaraa munaasib oo ma aha ma garan maxaa weeye midda kale la dul saaraya idin la keenay macnaha wada hadal kale oo meesha imaan karaaba ma jiro ilaa wada hadalkii lagu yimid bahol guricaalna aan uga soo baxnay kaas baa maaragtay fulin u baahan maahan hadda wada hadal kale oo doqka wareen oo meeshaba kuma jirin mana laakiin taliya annaga waxaan ogeyn oo ay weliba xubno ka mid ah culimada ahlu sunna sheegeen in magaalada 3 qodob aad uga baxdeen inaad guriceel ka baxdaan inaad wareejisaan hubkii iyo gaadiidkii aad dawladda ka qabsateen iyo in xabadda la joojiyo marka oo aad tagtaan deegaanka boholna aad wada hadal dawladda la gali doontaan wada hadalkii baa sii socday oo la sii ambaqaaday saraakiil idin la soo diray ma waadan u sheegina sida wax u rabtaan iyo waxa tabanaysaan waxa weeye adeer arintu sidaas adigu aad hadda u dhigtay ma ahayn waxay ahayd in maaragtay wada hadal la furo wada hadalkaasna maaragtay oo u dhaxeeyo ragganagii hubka laga qaaday oo magaalada la yiri ka guura iyo dhufayshada iyo ka dhaxeeya galmudug wada hadalkaas oo waxaan anagu ku soo baxnay asagii baana weli baaq ku noo ku joognaa meesha la yiraahdo mid ka hadda idin la keenana muxuu yahay iyo u dhaxeey mid kale oo naloo keenay oo annaga hadda aan dareemayna maba jiraba kaasaan ku joognay asagii baana weli ku joognaa ama jirtaa wax saraakiil oo militariga Soomaaliya ka tirsan oo idin yimid oo ahlu sunna wada hadal la galay saraakiisha Soomaaliya oo dhan waa saaxiibadeen waa dadkii aan wada dhalanay waa dadkii dawladdu naga dhaxaysay waa noo iman karaan wax walbana waa ka wada hadli karaa laba afla maxaa kala hadasheen laba afle waxaanu ka hadalnay nabadda iyo walaalnimada iyo wixii maaragtay haboon iyo deegaanka wixii ka dhacay aan ka wada hadal ma isku afgarateen mise waa isku afgaran weyseen waxaan isku afgaran weynay ama maaragtay aan isku diidanahay maba jiraan waxa weeye arintu cid walbaaba way ogeed in arintu wada hadalkaas joogtay wada hadalkii baana la wada sugaya waa maasanta taliya waxaa la ii sheegay maanta inaad hub cusub inaad la timaadeen oo weliba hub culus ah
inaad tijaabiseen dhaqdhaqaaq inaad samayseen oo magaalada Dhuusamareeb xaggeed u jeysateen ma jirtaa? walaal hubka iyo waxa weeye waxyaalaha ama noo yimaada ama nagu soo kordha wax aan cid la wadaagna ma ahaan waa wax annaga Ilaahay gaas nooga dhigay wixii hadda dhaqdhaqaaq oo jirana waa markaan dhaqdhaqaaq annaga xaggeena hadii la soo aado inaan isdifaacna ku qasbanahay laakiin dhaqdhaqaaq kale oo hadda aan sameeynin ma jiro. waa maasanta gabagabadii aan joognaa nin dawlad yaqaan baa tahay canshuurtii ummadda Soomaaliyeed ayaad askari ku noqotay darajo ciidan ku gaartay tababar wanaagsan ku heshay iyo tayo intii aad ugu shaqeyn lahayd taliya waxaad qayb ka tahay dadka Galmudug loo adeegsanayo dumintooda saas dad badan qaba ma u aragtaa inaad dhibaato u horseedayso deegaanka? waan ku yiraahdaa sida hadalka aad u dhigtay maahan waa sida uu yahay inaan ku sharxaan rabaa anigu waxaan ahay Galmudug raggi isu keenay baan ahay raggi isugu yeeray baan ahay raggi ilaa halgan qaangaar maraya inta ku soo jiray baan ahay raggi dib badan ka soo maray isu keenadeedan kamid ahaa inaan saaki burburiyo ama ay burburtana hatta bal inaan anigu sameeyo iska daayo codiga gadi kartaa ma jirto. Galmudug waxaan rabnaa inay dhisnaato dibkii laga soo marayna uu sagadaal u noqon ay hore u socoto laakiin waxa weeye waxa ka daldan la saxo halkaas baan joogaa maahana waxa weeye burburin xagga iska dhig mid cashuurta iyo macnaha waxbarashadana waa mid waxa weeye waa runta aniga waxa markii horeba waxa aan wax ku soo bartay kow diinta iyo dadka iyo dalka in la ilaaliyo ayadii baana baaq ku ahay cidii ka leexatay ama maaragtay jeexooyin kala aaday ama macno kala adeegsatay cidaas wax laga weydiin doonaa wixii dib u carrada ka dhacay. Ismaha Galmudug iyo waxa ka qaldan aad raadinayso ma waxaad ku raadinaysaa dagaal mise waxaad ku raadinaysaa wada hadal iyo wax isu sheegid? waxaan ku raadinaynaa wada hadal iyo wax isu sheegid wax dagaal ah aan qaaday oo yar oo badan adiguna ma sheegaysid cid kale oo ka maaragtay gobolka ku nool ama Soomaaliya ku nool lama sheegaysid ma garan inta aadan macallin Maxamuud iyo Sheekh Shaakir dib u soo laabashadooda aadan ku wehlin oo aadan raacin oo ciidankooda aadan taliye u noqon waxaad ka mid ahayd ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Dhuusamareeb aad joogtay dawladda la shaqeynaysay maxaadan ugu sheegin waxa hadda aad ka tabanayso? macnaha tabashadu waxa weeye ma ahan wax aniga shakhsigayga hadlaysiiyo waa wax guud oo dalka in la saxana waxa weeye waa mid aan haddana u taagnahay markii horena aan u taagnaa weeye walaal. waa maasanta ugu dambeyn maxaa weeye waxa hadda aad ummadda Soomaaliyeed u sheegi karto oo aad hubka ku dhigaysaan oo aad nabadda Galmudug qayb uga qaadanaysaan maxaad shuruuda ama rabitaan oo aad raadinaysaan? waxa weeye maamulka Galmudug waxa weeye wax shuruuda oo maanta anagu kaleeto oo jiraba ma jiraan waxa weeye waa maamulka Galmudug waxa lagu dhisay afgarad iyo maaragtay daawo sheerin iyo maxaan ku iraahdaayay in la wada ambaqaado horumarka Galmudug ayadii waa laga bayray markii laga bayrana in wadadii lagu celiyo oo lagu toosiyo oo wadadii markii hore lagu heshiiyay lagu toosiyo intaas ma maaragtay arintan waa la egtaa wax dib weyn waa meesha ma yaalin cidii dhibaysana waa in laga hadlo weeyaan.